Hoggaanka ismaamulka Kilifi ayaa waxa ay wajahayaan eedeyn aad u culus oo la xiriirta musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, iyadoo waaxda dambi baarista dalka ay bilaabeen in ay baaritaan xooggan ku sameeyaan hoggaanka ismaamulkaasi oo lagu tuhmayo in ay marin habaabiyeen lacago dhan 1.1 bilyan oo shilinka dalka ah oo la warinayo in ay ahayd in wax loogu qabto dadka deegaanka. Gudoomiyaha ismaamulka iyo ku-xigeenadiisa ayaa arrintan soo galaya, iyadoo waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ay warinayso in baaritaan rasmi ah ay ku bilowday lacagahan iyo halka la marsiiyay. Xog ay baahisay waaxdan ayaa waxa ay ku tilmaamtay in ay ka warheshay in shirkado sharciyaqaan ah la siiyay qandaraasyo been abuura, taasi oo lagu xalaaleysanayo lacagaha balse aysan suuragali doonin in sida lacagaha looga sabro. Sidoo kale waxa dadka deegaanku ay aad u hadalhayaan lacag intaas leeg sida fudud loogu lunsaday iyo heerka musuqmaasuqa dalka oo ay ka turjumayso xaaladan ay ku dhaqaaqeen mas'uuliyiinta ismaamulka Kilifi ee dalka. Ismaamulka Kilifi waxa uu ka mid yahay ismaamulada ay ka jiraan xaaladaha abaareed ee aadka u daran, iyadoona marka ka dambeysa ay sii kordhayaan walaaca laga qabo in xaaladaha abaareed ee deegaankaasi ku habsaday aysan helin dadka abaarahaasi ay saameeyeen gargaar ku filan. Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa dalka ayaa dhawaanahan aad u xoojisay la dagaalankeeda la xiriira dadka wax isdabamarinta sameynaya ee dawladda xilalka ka haya ama dawladda u shaqeeya, iyadoo arrintan ay tahay mid dadku ay si weyn u soo dhaweeyeen. Waxaana xaqiiqa in qaar badan oo ka mid ah dadka dawladda xilalka ka haya ay ku takrifalaan awoodda isla markaana ay lunsadaan dhaqaale bulshada loogu talagalay in wax loogu qabto.